بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهان داوديال ميل بواد joogteen ku soo dhawaada warka telefishinka caalamiga ee Caabud Waqti TV qodobada warka iyaga ugu doorroona waxa qayb ka madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Galmudug oo booqday xafiiska guddoonka baarlamaanka ee dawlad goboleedka Galmudug qaar ka mid ah dhalinyarada dawlad goboleedka Galmudug oo codsaday in madaxda Galmudug ay golaha wasiirada ka soo dhex muujiyaan dhalinyarada haldoorka ah ee wax baratay sidoo kale waxaad daawan doontaan qaar ka mid ah xildhibaanadii maamulka koonfur galbeed ee uu madaxweynuhu ku dhawaaqay oo iscasilay iyo waliba dawladda federaalka ee Soomaaliya oo sheegtay in hawlgal ay sameysay ay ku qabatay saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab akhbaaradka dibaddana waxaad ku maqli doontaan dawladda Kenya oo deegaanka Lamu kaga hortagtay weerar ay ku qaadeen ururka Al-Shabaab qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan daawadayaal ee u diyaar garooba warka faahfaahsan markale isku soo laabasho wanaagsan daawadayaashana qiimaha leh hadii aynu ku bilowno madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa galinkii dambe shalay booqday xafiiska guddoonka baarlamaanka ee dawlad goboleedka Galmudug sida warbixinta warkaani inuu weegayo wariyaha Mahadlukan Yuusuf madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa maanta booqday xafiiska guddoonka baarlamaanka Galmudug mudane Cali Ciid waxa soo dhaweeyay kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka ahna guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Galmudug Marwa Faadumo Cabdi Cali Fande madaxweyne ku-xigeenku waxa uu kulan la qaatay guddiga dastuurka baarlamaanka waxaana uu ku amaanay dadaalkooda ku aadan dib u eegista dastuurka Cali Ciid ayaa guddoonka baarlamaanka iyo guddiga dastuurka uga mahadceliyay shaqada Galmudug ay u hayaan maanta waa maalin weyn waa maalin aan daafurayno mashruuc ballaaran oo horay aan uga hergelin Galmudug mashruucan waa mashruuc ballaaran oo reer Galmudug ay ka faa'iidi doonaan maadaama ay ka qayb qaadanayaan wasaaradihii Galmudug oo 9 waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa wasaaradda qorsheynta federaalka oo hawshan soo agaasintay hay'adda Adam Smith iyo EU-da oo runaantii qaab cusub oo aan horey looga arki jirin u soo diyaariyay programkan waxyaabaha uu la qaas yahay barnaamijkan ILED mashruucan ILED waxaa ka mid ah in baahiyada ay qabaan reer Galmudug lagu saleynayo dadku waa kala baahiyo waxa laga yaabaa baahida Galmudug laga qabo inaan Puntland laga qabin hadii marka mashruucii loogu talagalay in Puntland laga fuliyo ama wadamo kale laga fuliyo Galmudug waxa laga yaabaa inaysan u baahnayn marka in aqoon-yahanadii reer Galmudug la wareysto oo la yiraahdo maxaad u baahan tihiin markay sheegtaan waxay u baahan yihiin wasaaradoodii loo soo mariyo waa hawl aan horey u arki jirin aad baan idinkaga mahadcelinayaa waana soo dhaweynaynaa Galmudug ahaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa tiimka hawshan soo agaasimay Galmudug waa idila shaqeyn doontaa abaal aad bayna idinkaga haysaa in mataqaana mashruucan aad u keenteen waxaan kaloo hay'adaha kale partnerska ama donorska aan ugu baaqayaa inay ku daydaan EU-da qaabkan ay hadda u soo agaasintay programkan sababtoo ah waxaa dhici jiray Galmudug waxaa ku qoran ilaa iyo kontomeeyo mashruuc waaweyn inay ka fuleen ilaa iyo haddana lagama hayo mashruucyadaas wax faa'iido ah ama wax muuqda guri noo dhisan oo wasaaradda ay leedahay oo badan ma jiro capacity building aan maanta sheegno wasaaraddeenu ay leeyihiin ma jiraan wax aan ka faa'iidnay mashaariicdii hore la qabtay ma jiraan taas waxaan isleeyahay ciladeeda waxay ahayd fulinta mashaariicdaas ayaa waxaa fulin jiray NGO-yo aan lahayn dabagal aan lahayn qorshaha aniga iyo madaxweynahayga mudane qoorqoor waa inaan soo dhisnaa wasaarado aad u tayeysan oo aan ku soo xulanno karti iyo hufnaan wasaaradahaas waxyahooda maaliyadda iyo maamulka waxaan u samayn doonaa tababaro adag oo ay kula jaan qaadi karaan caalamka haddii intaas ay noo dhammaato hay'adaha caalamka UN-ta iyo EU-da iyo dhammaan donorska waxaan ka codsanaynaa in mashruuc walba fulaya la soo marsiiyo wasaaradaha Galmudug ay leedahay oo dadka ka shaqeyn doona tayo aan ku soo xulan doono
halkaa waxaan ka faa'iidaynaa mashruucii la soo marsiiyey wasaarad galmudug ka tirsan dabagal baan ku samayn karnaa wax walba oo ku dhumana waa ka daba keeni karnaa laakiin haddii 3 qof oo laptop wata mashruucii gacanta loo geliyo ma lahan si loo dabagalo marka mar labaad iyo mar saddexaad waa u mahad celinayaa tiimkan soo abaabulay wasaaradda qorsheynta hanti dhowraha waa shaqo fiican buu asaga noo haya waa u mahad celinayaa mashruucan waa noo furan yahay waxaan rajaynayaa inuu guul noogu dhammaado sanadaha soo socdana inta uu hadda yahay uu ka siyaado aad baa mahadsantiin mahad dhukan yuusuf CWTV Cabudwaaq dhalinyarada dowlad goboleedka Galmudug ayaa madaxda sare ee Galmudug waxa ay ka codsadeen inay dhalinyarada iyo haldoorka deegaanadani Galmudug ay ka soo dhex muuqdaan golaha wasiirada qaasatan dhalinyarada wax baratay sida warbixinta warkaani inoogu eegayso wariyahayaga Nimcaan Nashaad qaar ka mid ah dhalinyarada hormuud ku ah Galmudug ayaa madaxda maamulka Galmudug ka codsaday inay fursad u siiyaan Galmudug inay ka soo dhex muuqdaan golaha wasiirada cusub ee Galmudug oo dhawaan la filayo in lagu dhawaaqo Farxiye Jeeta Farxiye Wadani iyo Nasteex Aadan Cabdi Qabyaaladiid oo ah laba ka mid ah dhalinyarada hormuud ku ah dhalinyarada Galmudug oo u waramay warbaahinta CWTV ayaa sidaa yiri bismillah magacaygu waa Nasteex Aadan Cabdi كنا ناس دير قبيلة جديد كم إذا نرى دقمة عذا كنول هنربى إن شاء الله إن حكومات دول استاجوا دور كان يرى كلمتك لنا الصومالية كليهن كابغا شذا حجانك أمنية يا هرمرها كسر جيج الصوماليات رنتي وحنا كرنا ودور بوجودين تيس يدير رجلين تيسله maantana ay dareemeen dhalinyarada Soomaaliyeed inay dhex u xirteen sidii qayb u noqon lahaayeen nabadaynta dib u heshiisiinta iyo horumarada socda ee dalka yihiin la dharta koobaad ee maanta soo ifbaxday kaalin weyn ka qaatay sidaas darteed waxaan dhihi lahaa maanta waxay u baahan yihiin motivation iyo garab istaag marka waxaan rabaa qaasa inaan ula hadlo markaas maamulka iyo madaxda sare ee Galmudug runtii waa dareemaynaa waxaan ugu soo wajahan calaamasaarkii iyo soo kale wax ka dambaysa dhisidii golaha wasiirada sidaas darteed waxaan kula talinayaa madaxda kuna bogaadinayaa inay doorka quruxda badan ee dhalinyarada soo ifbaxay ay qayb ka qaataan dhisidda iyo galida Galmudug cusub keeni karta 4 sano baraaray iyo nolol fiican dhalinyarada iyo bulshada ay ku waarto una baahan in laga feejignaado cidda masiirkaas matali karta waan ognahay qodob story ah ayay baarlamaanku maaldo tajabiyeen oo ahaa in ay golaha wasiirada ay ka mid noqon karaan baarlamaanka taasoo mar walba sida hore baranay federaalka ka baranay challenge iyo caqabad ku noqota maamulka iyo hanaanka dawladnimo dawladda marka ay leedahay kala madax bannaan tahay ilaamaheeda fulinta iyo sharci dejinta waxaa imaanaya isla xisaabtan waxaa imaanaya in si wanaagsan ay maamulkii u hufnaadaan kala madax bannaanada laakiin mar walba maaragtay in aan bulshada la dhiirigeliyo dhalinyarada la dhiirigeliyo waa dareemaysan Galmudug hadda waxay soo martay marxalad adag alxamdulillah hadda maanta mas'uuliyiin bay yeelatay mudane Axmed Cabdi Kaari Qorqor iyo mudane madaxweyne ku-xigeen Cali Daahir Ciid waa rag runtii dhalinyaro ah Galmudugna aan isleenahay wax badan bay ka bedeli doonaan waxaan leenahay mas'uuliyadda waxaan ku codsanaynaa dhalinyarada oo waxtarka u leh deegaanada inay siiyaan fursadaha mas'uuliyadnimo waayo anagoo aan mas'uuliyad u hayn Galmudug ayaanu ka soo shaqeynay amaan baan ku leenahay maanta kama shaqeeyo waayo waxaan awoodnaba ama aan hindisnaba inaan bulshada waxna u sheegi karno waxna ka dhaadhici karno iyaguna ay wax noo sheegi karaan maadaama inaan anagii kali iyaga aan wax u sheegno maahan annagana waa inaan wax u sheegno iyagana ay wax noo sheegaan marka mas'uuliyiinta waxaan ka codsanaynaa dhalinyarada haldoorka u ah deegaanada Galmudug in ay mas'uuliyiinta iyo xilalka wasiirnimo hadda la filayo inay dhalinyarada ay doorkooda ay ka siiyaan leenahay insha Allah marka hadee waa muhiimka inta aragtideenu galabta intaas ahayd waxaan fili doonaa insha Allah mas'uuliyiintu inay arki doonaan dhalinyaro kale oo hadashana ay dareemi doonaan arki doonaan laakiin anigu fikirka waxa ka farxiyo ahaan waxaan ku boorinayaa mas'uuliyiinta inay sameeyaan isbedel doon waxa way isbedel ku yimaadaan ayagu
dhalinyarada waa inay isbedel u sameeyaan una noqdaan dad u hoggaansan dhalinyaradu 75 aa lagu tilmaamaa mar walba mas'uul kasta iyo madax kastana way qaataan laakiin siday u sheegaan dhalinyarada uguma garbaxan anuguna meel kasta oo joogno iyo maqaam kasta oo leenahay dowladnimaana deeqda walaad faa'iido ma lahan oo soo aragna waxay tahay nabadna waa midaan caawada aan ku damaashaadayo maartay aan waraysiga ku dhiibayo waa maasantihiin salaamu calaykum waxaan kaloo runtii u mahad celinayaa TV-ga degmada Caabud Waaq oo runtii kusoo siyaaday deegaanada Galmudug aan ka arkayna Jubbalandba in laga dhageysanayo degmada Kismaayo runtii farxadeen noo tahay in TV degmada Caabud Waaq laga furo oo magacii degmadana loogu magac daro deegaano naga baxsanna uu macnaha haduu ka howlgalo waxaan leenahay TV-gu hawaaro waxaan filayaa dhalinyaro runtii macno u leh deegaanka ayaa howlwadeenka ama mas'uuliyiinka ah ayagana waxaan leeyahay mar walba ha ka daalina bilicda iyo wanaagga iyo horumarka deegaanka u haysaan arrintan ayaa ku soo aadameysay xilli la filay in lagu dhawaaqo golaha wasiirada cusub ee Galmudug waa Nimco Gooni Nimco Nashaad CWTV magaalada Caabud Waaq dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay hawlgal ay sameysay ay ku soo qabatay sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab sida warbixinta warkaan inoogu eegay waryahayaga Nasteex Farxaan Shidane ciidamada dowladda Soomaaliya ee dhawaan la wareegay deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa saacadii la soo dhaafay hawlgal ka wadeen duleedka deegaanka Janaale oo la sheegay inay ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab saraakiisha hawlgalka hogaaminaysa ayaa waxa ay sheegeen in hawlgalkaas lagu qabtay madaxa amniyaadka Al-Shabaab ee gobolka Shabeellaha Hoose kaas oo magaciisa ay ku sheegeen Xasan Suleet oo loo yaqaan Xasan Ganay taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka sareeya guuta Cabdixamiid Maxamed Dirir oo taliyaha ayaa tilmaamay in haatan ay korortay wada shaqeynta ciidanka iyo dadka deegaanka isla markaana taasi ay suurto gelisay inay ku guuleystaan amniga deegaanka Janaale iyo deegaano kale oo ku yaala gobolka Shabeellaha Hoose si kastaba Al-Shabaab dhankooda wali wax war ah kama soo bixin oo ku saabsan war ka soo yaray taliska ciidanka xooga dalka oo lagu sheegay in lagu qabtay madaxa amniyaadka Al-Shabaab ee gobolka Shabeellaha Hoose Nasteex Farxaan Shidane CWTV magaalada Caabud Waaq maamulka iyo ciidamada ku sugan deegaanka Kilbiyow oo magaalada Kismaayo koonfur kaga beegan ayaa waxa ay sheegeen inay guud ahaanba hoos tagi doonaan wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya sida warbixinta warkaani uu ku faahfaahinaya waryahayaga Boolid Jaamac Faarax Mawlid Galwa wararka aan ka helayno deegaanka Kulbiyow ee gobolka Jubbada Hoose oo qiyaastii 70 kiiloomitir u jira magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in maamulka deegaankaas iyo ciidamadii ku sugnaa Kulbiyow ay ku biireen dowladda Soomaaliya iyagoo si toos ah uga amar qaadan doona wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya gudoomiyaha deegaanka Kulbiyow iyo taliyaha ciidamada aaggaas oo ugu magacaaban Jubbaland ayaa ka soo dhex muuqday muuqaal yar oo soconayo 7 daqiiqo oo la soo galiyay baraha bulshada dhawaan ayagoo sheegayo inay si toos ah uga amar qaadan doonaan wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya iyagoo hoos tagayn maamulka Jubbaland deegaanka Kulbiyow oo hoostaga degmada Badhaadhe ayaa ah deegaan istiraatiiji ah oo u sahlayo hadii dowladda Soomaaliya ay gacanta ku dhigto inay awood buuxda ku yeelato Kismaayo iyo guud ahaanba gobolka Jubbada Hoose arinta Kulbiyow oo kaga aadan koonfurta Kismaayo ayaa ku soo aadayso iyadoo maamulka Jubbaland ee Kismaayo horay dowladdu ugala wareegtay maamulidii gobolka Gedo Mawlid Jaamac Faarax Mawlid Galwa warbaahinta CW magaalada Caabud Waaq ee bartamaha Soomaaliya iminkana akhbaraadka caalamka dowladda Kenya ayaa ka hadashay weerar ururka Al-Shabaab uu ku qaaday gobolka Lamu ee dalka Kenya xubno la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay weerareen xarun ku taala deegaanka Milehi oo halkaas oo ay ku sugnaayeen shaqaale u dhashay dalka Shiinaha oo dhismo ka waday inta u dhaxaysa Lamu ilaa iyo Garazena waxaana weerarkaasi ka hadlay booliska dalka Kenya wargeyska The Standard ee ka soo baxa dalkaasi Kenya ayaa daabacay inay jirto dagaal dhex maray ciidamada Kenya oo shaqaalaha ilaalinayay iyo xubno ka tirsan ururkaasi Al-Shabaab oo aan wali la saadaalin qasaaraha ka dhashay taliyaha booliska gobolka xeebta ee Lamu ayaa sheegay inay ka hortageen weerarka ay xubnaha Al-Shabaab ku beegsanayeen shaqaalahaasi u dhashay dalka Shiinaha ayagoona sheegay inay mar walba u taagan yihiin ilaalinta dadka ku sugan dalkooda Kenya
guud ahaan baa daawadayaal intaas ayaynu ku soo afmeeraynaa war wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaaray oo aad ka daawanayseen telefishinka caalamiga ah ee Cabdwaaq TV warka waxaan la socodsiinayay anigoo Mahad Bashiir Cismaan Maadcalif intaynu warkan warkii ku kulmayno waa dhamaantiin idin leh sidaas iyo nabadgelyo